intaas waxaan uga gudbaynaa afartaas qodob iyo afartii qodob oo hore oo isha xasidka aan uga soo hadalnay iyo afartan qodob oo sixirka xasidka aan uga hadalnay waxaan u gudbaynaa afar qodob oo ayagana insha allahu tacaala waa idiin soo koobi doonaa wayna soconaysaa barnaamijka hadduu ilaa yiraahdo isha maxabada waxa loo yaqaano caynul maxaba calaamadaheeda ama sixirka qofka la isku jeclaysiiyo oo kale nin baa gabar isjeclaysiinaya ama gabar baa nin isjeclaysiinayso calaamadahan afarta ah haddii aad isku aragto waxaa tahay qof masxuur ah oo isla markaasna loo sameeyey sixrul maxaba isjeclaysiintu midna waa mid bannaan oo qofka haweeneyda inay ninkeeda isu qurxiso oo ay isjeclaysiiso dabeecad ahaan ay isu qurxiso waa wax iska bannaan ninkana sidoo kale haweeneydiisa inuu isjeclaysiiyo oo dee labiskiisa iyo horihiisa iyo dabeecad wanaagsan inuu isjeclaysiiyo jacaylkaas noocaasa waa wax bannaan oo labada qof inay isjeclaadaan balse markuu imaado sixrul maxaba waxa la yiraahdo way ka duwan tahay midda ayada ah kow haweeneydu waxay dareemaysaa raqba aan ahayn rabitaan zaa'id ah oo ninkaas baxalgiisa aan laga mari karin jacayl zaa'id ah oo ka baxsan awoodeeda ayay raadinaysaa ninkuna sidoo kale haddii loo sameeyo haweeneydii u samaysay sidaas oo kale ayuu raadinayaa waa calaamadaha lagu garto waa xaddaaf asagaa marmar isla yaabayo oo oranaya maxay tahay waxan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha muslimiinta meel kastood joogtaan waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado sanad ku waartaan insha allahu tacaala waa barnaamijyadii aad kala socoteen xarunta alhilaal ay ku leedahay magaalada nairobi xaafadda islii insha allahu tacaala waxaan guda gelaynaa maadaama dadkii ay u baahdeen in loo kala qaado calaamadaha ku saabsan xanuunadan ruuxiga ah isha xasidka sixirka musiibiyanta waxyaalahan mid walbo waxay leedahay calaamado u gaar ah marka insha allahu tacaala afar calaamadood ayaan idiin soo gudbinayaa oo mid walbo lagu garto saad ogtihiin walaalayaal xanuunadan ruuxiga ah waxay lambar 1 ka yihiin maanta xanuunada jiro ee ragga iyo dumarkaba ay la daalaan dhacayaan dad badan aysan garanaynin xanuunkooda nooca uu yahay iyo sida markaasi loo hayo oo isbitaallo inta badan dadka ay ku wada mashquulsan yihiin dad waa jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala soo waafajiyo systemkan iyo nidaamkan inay isku daaweeyaan waxyaabaha inta badan aan dadka ula wadaagayno informationada noocan oo kale ana waxaad arkaysaa qof soo daalay oo isbitaal iyo meel walbo tagay oo xanuunkiisa garan la ayaa markuu daawado kilibyada noocan oo kale ah ayaa wuxuu ogaanayaa cilada meesha ay ka jirto xanuunkiisa nooca uu yahay ayuu ogaanayaa markaasuu soo baraarugayaa qofkii taasa marka annaga waxaynu u dhiirigelinaysaa ama inaan juhdi badan ku bixino ay keenayso in aan wixii dadkii siday tahay aan ugu fasirno ugu sheegno xanuunada iyo calaamadahooda sida lagu garto iyo sida lasaga daaweeyaba inaanu bulshada la wadaagno marka sidaa awgeed insha allah waxaan idiin soo gudbinayaa afar calaamadood oo lagu garto xanuunadan ruuxiga ah qaybo ka mid ah sidaa awgeed afartan calaamadood waxaa iska leh xanuunka loo yaqaano umusibiyaanta ayaa gaar u ah umusibiyaantu waa xanuun aan hore uga soo sheekeynay oo ku dhaco dumarka khaasatan wareega saameyn ku yeeshay yaminka iyo dhasha iyo waxyaalaha la taxalluqo ayay saameyn ku yeelataa raggana qaab gooni ah ayay saameyn ugu yeelataa tan waxaa iska leh umusibiyaanta haweeneydu waxay isku arkaysaa culays qaarka dambe ah miisaan iyo tallaabadii aysan qaadi karin ayay isku arkaysaa calaamada labaad waxaa weeyaan kaadida ma cishan karto way ka fakanaysaa kaadi fakad waxa la yiraahdo oo kaadida iska baxsanaysa kaadi fara badan oo mar walbo ay qabanayso ayay yeelanaysaa waxay yeelanaysaa nabar qabanaya oo ay sida qof foolanaya camal ayuu nabar u qabanaya marmarka qaar waxay isu malaynaysaa inay tahay qof uur leh uurna ma lahan calaamadaha lagu garto umusibiyaanta qayb ka mid ah weeyaan waxaa dhaqdhaqaaqaya oo ay ka dareemaysaa dhaqdhaqaaqa wareega ayay ka dareemaysaa marba dhinac wax dabeel oo ku dhaqdhaqaaqayo oo vibrating sameynaya ayay dareemaysaa waxay leedahay calool fuur caloosha ayaa soo fuurayso soo bararaysa isla markaas waxay yeelanaysaa waxa loo yaqaano constipation oo saxaradii ayaa ku adkaanayso iyo musqushi afartaas calaamadood haddii ay isku aragto waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto umusibiyaanta xanuunka umusibiyaanta loo yaqaano sidoo kale afartan qodob ayaduna waxaa iska leh isha xasidka afartan qodob waxaa leh isha xasidka qofka ay asiibtay saad ogtihiinba waxaa jira laba nooc oo isha bini aadamka ay ku dhacdo mar waa nooc maxaba ah
oo qofkii wixii uu jeclaanaya qofkan uu sameynayay ama quruxdiisu ka helaya ma sha Allah ma dhahayo waa nooc yacni maxaba ah oo uu tamaninayo qofkan yacni uu ish la sii raacayo noocna waxa weeyaan waa il xasid ah oo qofka si xun uu qofka u fiiriyo ku celceliyo ishi uu ku celceliyo isla markaasna uu jeclaado qofkan in nicmada uu haysto inay ka guurto ama asaga ay ku soo wareegto xasidka noocaas ah qofka wuu la xanuunsanaya markay ku dhacdo isla markaasna waxaa isbedel ku imaanayo dhammaan waxyaabihii qofkaasi uu ku fiicnaayo dhan hadduu ganacsiga ku fiicnaa ganacsiga waa ka soo fariisanaya waa soo seexanaya gurigu imaanaya haddii waxbarasho uu ku fiicnaa oo waxbarasho lagu xastay waxbarashadii waa ka fariisanaya haddii uu ku fiicnaa dhanka hadalka iyo qudbooyinka iyo diyaarinta cashirada iyo maaragta hadduu ku fiicnaana waxa weeyaan waa ka gaabinaya hadduu ganacsiga ku fiicnaa sidoo kale haddii yacni korkiisa jamaal iyo qurux uu ahaa wax lagu xastay qurux ahaydna waxaad arkaysaa qofkii oo xubnihiisa isdaadaayeen oo aad maaragtay korka nabarra ka soo daateen ayaad arkaysaa sidaa awgeed calaamadaas waa midda ugu horeyso sidoo kale wejiga wuxuu ku yeelanayaa nabarro fara badan nabarra jirka ka soo daadanayo madax xanuun wuxuu yeelanayaa qofka zaa'id ah oo xanuun baabiye kasto benkeela kasta oo cuno uusan waxba ka taraynin zaa'id ah ayuu dareemayaa madaxa labada meeloodna waa ka dikaamaya halka qaybta korona waa ay dikaamaysaa isla markaas dhabarka qaybtiisa dambana way xanuunaysaa qofka sidoo kale dhabar xanuunka zaa'idka ah waa lambarka afaraad oo lagu garto xanuunka xasidka isha xasidka ah oo lagu garto xanuunada noocaas oo kale sidoo kale afartan qaybood iyaduna waxaa lagu gartaa sixirka loo yaqaano sixrul xasad waxaan hore idinkugu soo sheegay isha xasidka iyo calaamadaheeda haddaba kana waa sixirka xasidka qofka loo sameeyey oo lagu xastay differentiga u dhaxeeya waxa weeyaan kani waxa weeyaan waa il xasad oo kaliya oo il ku dhacday oo qofka lagu celceliyay oo qofka xunka ay khabiidka ah ishiisa qofka ay saameysay waa il xasad la yiraahdaa kana waxaa sii raacay isla xasadka isaga ah wuxuu sii raaciyay sixir dhaata la sameeyay wax la haaga la guntay nidaam la sameeyay oo la qorsheeyay isaga iyo sixiroola isla qorsheeyay ayaa wuxuu noqonayaa marka sixrul xasad baa la yiraahdaa qofkaasi markii loo sameeyo sixirul xasadka wuxuu dareemayaa kor cuncun buu dareemayaa waa isxoqaya maanta dhan jirka oo dhan buu iska xoqaya nabarra ka soo daadanayo boomaatooyinka antibiotic oo dhaqaatiirtu ay bixiyaan way caawinayaan ficlan laakiin wixii ma zuulinayaan waa soo noqnoqonayaan qodobka labaad waxa weeyaan wuxuu yeelanayaa xinaaq aad u fara badan oon la kontarooli karin xinaaqiisu waa degdeg wax kasta wuu ka xinaaqayaa waxaa ku dhalanaya shaki fara badan xaaskiisa buu ka shakinayaa dadka saaxiibadiisa ka shakinaya dadka shaqada la wadaagay buu ka shakinaya yani wax walbo hadal kaste waxa ku jiro wax la yiraahdo shaki in iyo xinaaq degdega waa qof kale la xastay calaamadaha lagu garto calaamada labaad waayo wuxuu leeyahay marka qofka sixirka xasadka loo sameeyay kordubaaxin wax loo yaqaano vibrating jirka meel kamid ah ayaa waxay sameynaysaa gariir way dubaaxinaysaa garbaha dubaaxinaya ama lugaha ama wareega qoorta saasuu maanta dhan ku haynaya qoortii buu saa u lugligay marka wuxuu dareemayaa vibrating wax la yiraahdo gariir ayuu dareemayaa qofka sixirka xasadka ah loo sameeyay wuxuu leeyahay qofka xasadka loo sameeyay sixirka loo sameeyay wax la yiraahdo go'aan qaadasho la'aan go'aan maba qaadanayo qofkan maanta barnaamij buu sameynayaa barnaamijkii uu go'aanka ku qaatay waqti gudihiis ayuu haddana ka soo jeesanayaa meel kale u aadayaa hawshii uu rabay inuu sameysto oo balaankii iyo nidaamkii uu degsaday qorshihii uu degsaday oo dhan kuma tallaabo qaadayo waxa weeyaan waa kadib dhacaya mid kale u aadayaa meel kale loo dirayaa marka go'aan qaadashadaas zaa'idka ah haddaad isku aragto waxaa ku hayo sixrul xasid wax la yiraahdo waad xastan tahay waa inaad si dhaqso ah insha allahu tacaala iskaga daaweyso intaas waxaan uga gudbaynaa afartaas qodob iyo afartii qodob hore oo isha xasidka aan uga soo hadalnay iyo afartan qodob oo sixirka xasidka aan uga hadalnay waxaan u gudbaynaa afar qodob ayagana insha Allah tacaala waa idin soo koobi doonaa wayna soconaysaa barnaamijka haduu ilaahay yiraahdo isha maxabada waxa loo yaqaano aynul maxaba calaamadaheeda ama sixirka qofka la isku jeclaysiiyo oo kale ninba gabar isjeclaysiinaya ama gabar baa nin isjeclaysiinayso calaamadahan afarta ah haddii aad isku aragto waxaa tahay qof masxuur ah oo isla markaasna loo sameeyay sixrul maxaba
isjeclaysiintu midna waa mid dee bannaan oo qofka haweeneyda inay ninkeeda isu qurxiso oo ay isjeclaysiiso dabeecad ahaan ay isu qurxiso waa wax iska bannaan. ninkana sidoo kale haweeneydiisa inuu isjeclaysiiyo oo dee labiskiisa iyo horihiisa iyo dabeecad wanaagsan inuu isjeclaysiiyo jacaylkaas noocaasa waa wax bannaan oo labada qof inay isjeclaadaan. balse markuu imaado sixrul maxaba waxa la yiraahdo way ka duwan tahay mid ayada ah. kow, haweeneydu waxay dareemaysaa raqba aan ahayn rabitaan zaa'id ah oo ninkaas baxalgiisa aan laga mari karin, jacayl zaa'id ah oo ka baxsan awoodeeda ayay raadinaysaa. ninkuna sidoo kale haddii loo sameeyo haweeneydii u samaysay sidaas oo kale ayuu markaas ayuu raadinayaa. waa calaamadaha lagu garto, waa xaddaaf asagaa marmar isla yaabayo oo oranaya maxay tahay waxan maxabadan zaa'idka ah, dareenkiisoo dhan baa kacaya, iyaduna dareenkeedoo dhan baa kacayo. yacni waxay raadinaysaa ninkaas ma ogiye wax walba xagga gogashana aad bay maaragtay iyo qofku u raadinayaa. waxau yeelanayaa calaamado kale oo yacni xagga taranka la xiriiro ayuu asagana qofkaasi yeelanaya. wuxuu yeelanayaa qofka haamaansi fara badan, mar walba inuu haamaansado, uu yiraahdo afka kala qaado, neefka imaado, hurdo aan jirin uu iska raadiyo. markii qudbooyinka ama meelaha cibaadada la imaanayo hurdu iska raadinaya, qofku wuu hurdaya, markii laga shaqada ayadeed ay dhamaatana waa ordaya. haamaansigaas iyo hurdadaas farada badan waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto min cayn almaxaba ama sixru almaxaba waxa la yiraahdo ayay ka mid tahay. dareenkiisana qofka aad buu u kacsan yahay, zaa'id ayuu u kacayaa qofkii loo sameeyey sixru almaxaba. wuxuu leeyahay sidoo kale waxaa loo yaqaano walwal, murugo ayaa qabanaysa qofka, khaasatan bacda alcasr oo kale habeenkii hurdo la-aan ayuu dareemayaa qofkii, oo hurdo la-aan baa ku dhacaysa. haddaba marka qaabka ugu wanaagsan ee loo cilaajiyo xanuunadaas ruuxiga ah waxa weeyaan walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala oo marka hore loo toobad keeno, qur-aankiisa oo si dhab ah laiskugu daaweeyo, lana raadsado qof barnaamijkaasi ahl u ah oo garanayo oo dadka ku cilaajin karo nidaamka saxda ah ee sunnada shareecada islaamka waafaqsan inuu qofka raadsado isku cilaajiyo. uusan aadin kitaab gablow iyo sixiroolo kale iyo dhibaato kale inuusan sii raadsanin, nidaamka ugu wanaagsan uu raadsado qofka isku daaweeyo. sidoo kale waxyaabaha caawiyo oo acashaabta caawiso markii laga soo tago qur-aanka iyo sunnada nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam, acashaabtu waxay door weyn ka qaadataa daawadhireedku in xanuunkii jirka ku jiray qofka jirkiisa ay ka soo baxdo oo uusan maaragtay isku qarin karin, shayaadiintu aysan isku qarin karin, sixirkii jirka uusan ku jiri karin, wixii qarsoonaayoo dhan ay soo baxayaan. marka daawooyin waxaa jira runtii xarunta alhilaal waa laga helaa, waadna soo dalban kartaan insha allahu tacaala. waxaa jira qofka sidiisaba haddii 7 beri uu isticmaalo daawooyinkaas uu ku ogaanaya xanuunkiisa. qofna waaba qof markii qur-aanka lagu bilaabo xanuunkiisa banaanka usoo baxayo oo ayna isqarin karin. qofna waxa weeyaan xanuunkiisa waqti badan buu soo hayay oo jirkii oo dhan buu ku jiraa, xanuunkii buu dareemayaa, isbitaal waa ka daalay. wuxuu u baahan yahay qofkaas oo kale si gaar ah in loo baaro oo la ogaado xanuunkiisa nooca uu yahay. waxaa jira marka acshaab daawooyin, waxaa jira 7 beri qofka uu isticmaalayo haddii jirkiisa wax xanuunada ruuxiga ku saabsan, sixir il xasid ku saabsan haddii jirkiisa ay ku jiraan, banaanka keenayo ayna isqarin karin baa jira. marka dadku waa inay ku baraarugaan wax walbo oo xanuun oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey inay jiraan daawadeeduna inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey. waa inay dadku ku baraarugaan, waa in aysan quusanin. dad badan baa iska quusanayo oo oranayo meel walba waan tagay, wax walba waan sameeyey, weli xanuunka waa ay hayaa. maya, ha quusanina, xanuunkiina waa kusoo celcelinaya ereygaasi, marnaba ha ka quusanina. insha allahu tacaala yowma min alayaam ayaad ka caafimaadaysaa xanuunka ku hayo, khaasatan xagga dhasha dumarka, dilanka farada badan iyo xanuunadan xibnaha taranka ku dhaco. taranka sixirka lagala dagaalamo, sixirka asalkiisu wuxuu la dagaalamaa taranka, inta badan ayay u sameeyaan sixirolayaashu. sidaa awgeed waa loo helayaa xal insha allahu tacaala. aad baad u mahadsantihiin. wixii faahfaahin dheere iyo su-aalo qofkii qabo lambarada meesha ku qoran waad nagala soo xiriiri kartaan. ilahay idinkiisa soo dhawaada meel kastoo joogtaan insha allahu tacaala. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu. شفاء لروحي وحبل المتين.
bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo mid cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex daraya cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka waalida ceedo wareerka umusibyaanka gabdhaha wejiga ka halaabay baabasiirka dhagaxa kiliyaha gala xoojinta raganimada isha dhiigkarka sokorta naxdinta kili xanuunka waswaaska madax xanuunka jinka dhalmala'aanta dhasha allah bixiye toobinta iyo kuwo kale oo fara badan